waxaan rabaa fariin inaan u diro maamulka uu weyn yahay Muuse Khaatume State iyo maamulka Muuse waad adigu u weyn tahay laba maamul oo Soomaali ah oo isgarab degan waa saasay dawladda Soomaaliya aqoonsatay annaguna iyadan taageersan markaan kula hadlayana afka kuumadan kula hadlaya waxaan ku leeyahay waxa maalmahan ka soo baxaysa hanjabaad ururin digdig warhooy waan ku aragnaa waan idan fiirinayna in badan baan nabadda iyo deriska iyo walaalnimada iyo Soomaalinimada idinku dhowrayna markan idan ma si fiirsan karo kaasna marka ayada arrimaha saas oo soo joodinayaan waa ogaaska kuumada Kablaxtaarood ogaas Cabdiraxmaan ogaas Khaliif oo u sheegay uguna baaqay Muuse Biixi xukuumaddiisa inay kula dhaqmaan si nabad ah dalka Curdon maamulka cusub ee hadda ka dhashay Khaatume State laguna magacaabo kaas oo in muddo ah ay kula jirtay masana ay ku siyaasad ahaayeen masana isku wax darsadeen Somaliland marka horena ay nabadii marka ay ku noolaan laakiin ugu dambeyn dib ay ka laftooda ay keeneen Muuse Biixi xukuumaddiisa ay keentay qaas ahaan ciidankii oo si xaq darro ah masana si marka ayada sharci darro iskala dhaqanayaan beesha dhulbahantay oo marka ayada deegaanka marka ay la qaybsanaysay la siyaasadna ay codsadeen inay gooni u istaagaan marnaba ay diyaar u ahayn in la gumaado laguna gumaado xukuumadda Muuse Biixi iyo Somaliland taas oo ay ku sheegteen in ay ka laftooda gooni u istaag ay rabaan laakiin inay laga diiday marka ugu horeysay oo Muuse Biixi uu ka diiday xukuumaddiisii ay kan ay xoog marka ayada isku sheegteen labada dhinacba taas oo kaliftay in dagaal badan iyo burbur badan ay ka soo gaarto dhinacaas laakiin ugu dambeyn ay ka guuleysteen oo ay barakacyaal badan iyo dib badan iyo burbur badan kadib ay uga guuleysteen Muuse Biixi xukuumaddiisii iyo ciidankii marka ayada ku sugnaa dhulkaasi Goojacadi iyo Laascaanood kuna burburinay kuna dhameynay maatadii reer Laascaanood iyo Khaatume State laakiin ugu dambeyn way ka guuleysteen haddana waxa lagu magacaabay ugu aqoonsaday madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamza inay ay ka noqon karaan gobol taas oo la asxiyay shalay laakiin ugu dambeyn wuxuu sheegay Muuse Biixi inuu marna aqbali karin taasna uu isku diyaarinayo dagaal xoogan uu ku ballan qaaday ilaa xuduudkiisi ilaa meesha uu sheeganayo ilaa uu ka gaarayo uu marnaba uu aqbaleynin masana xukuumadda Muuse Biixi yeeleenin in dhul Somaliland ay leedahay marnaba laga qaadan karin caarad fiideeda Allah ka dhigay laakiin Muuse Biixi taas oo ilaa hadda uu ku soo jawaabin laakiin uu ka muuqato dhiiranaan badan iyo marka ayada ciidan badan uu keenayo og iyo dagaal uu marka ayada qaadi rabo xog hoose sheegayso inuu dagaalka ugu xoogana uu qaadi doono ilaa Laascaanood uu istaagi doonin wixii ka hor imaadana uu burburin doono taas oo marka ayada uu ka soo jawaabay ogaaskaas ayuu ku sheegay haddii uu ku soo qaado Muuse Biixi dagaal xoog iyo dagaal inuu ku qaato masana uu ku soo galo maamulka cusub inuu mar walbaba diyaar u yihiin inay difaacaan inkastoo marka hore ay ka lugta ay ka jirinayeen masana marka hore ee burburkii iyo dhimashada badan loo geysanay Laascaanood marnaba ay u dir qaadanin masana marnaba ay ku dhaqaaqin masana inay ka difaacaan ay isku dayin oo ay ka aamusnaayeen laakiin hadda maadaama magacaabay dawlad madax bannaan oo ay ka laftooda meesha uga xiranayaan dawladda federaalka Soomaaliya oo uu madaxweyne Xasan Sheekh uu ansixiyay inay marnaba ay u soo dul qaadan karin in lagu soo xadgudbo gobolkaas oo hadda maamulkii cusubna hagaajisanayaan iskuna aruursanayaan marnaba in la burburin karin ayuu sheegay haddii ay tilaabo qaado Muuse Biixi xukuumaddiisii inay u tilaabo qaadaan dhinacaas iyo Laascaanood iyo Khaatume State gabi ahaanba inuu ay ka diyaar u yihiin mar walbaba inay difaacaan maamulkaas ilaa uu lugtiisa kaga istaagayaan ay garab taagan yihiin hiil iyo walba wax kasta ay noqotaba inuu diyaar u yahay inuu mar kastaba difaaca Laascaanood iyo marka ayada Khaatume gabi ahaanba diyaar u yahay teeda kale wuxuu ugu baaqay Muuse Biixi xukuumaddiisii inay nabad ay kula noolaadaan wixii hore ee marka ayada uu geystay oo dil iyo burbur oo Laascaanood iyo Khaatume State gabi ahaanba uu geystay inuu gadaal looga laqi doono haddii uu arrintan uu farax kala baxo si nabadna walaaltinimo ay ku dheehan tahayna la iskula noolaado laakiin haddii marka ayada mar labaad uu isku diyo inuu burburku u geystay hadda wali uurku lagu haysto inuu mar labaad uu geysto waa mid kasto oo meel kasto la taagan yahay beesha kuumada qaas ahaan ee difaac iyo marka ayada diyaar garow ay isku diyaarinayso inay difaacdo dhulkaas iyo Khaatume State inay u hiiliso walaalahood marka horeba ay ku fiirsanayeen burburka Muuse Biixi xukuumaddiisa ee u geysanaysay laakiin hadda wuxuu sheegay haddii nabad uu ahaan waayo Muuse Biixi meeshiisana nabad uu ku joogi waayo inuu
uu diyaar u noqonaya misna diyaar u yihiin yihiin beesha kumaday inay mar walba u difaacaan Khartoum State. Muuse Biixi asaga laftiisa arrintaas hadda wuxuu ku dhiiranayaa inuu mar walba u aqoonsanin misna uu diyaar u ahayn inuu aqoonsado si la aqoonsaday dowladdii iyo madax bannaanidii Khartoum State ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Xasan Sheikh ay aqoonsadeen inuu marnaba u aqbalin uuna diyaar u ahayn inuu aqbalo, taas oo mar walba uu sheegayo inuu dhulkiisii uu diyaar u yahay inuu soo ceshado sidii ballantu u qaaday markii horena haddaba ballantu uu ku taagan yahay uuna sheegay inuu xuduudkiisii mar walba uu aqoonsaneen misna uu ogoleen qof kaste mise qof kale inuu qaato Soomaaliyana inay qaadan karin ayuu sheegay. Inkastoo Soomaaliya ay marka ayada dhulkan ay ka ahayd bari markii dagaalkan iyo dhibkan uu ka dhacay, laakiin hadda maadaama ay dowladdii iyo marka ayada xukuumaddii ay soo shacbisay ayna sheegtay inay rabto gooni istaageeda in loo shaaciyo misna loo fasaxo ayuu madaxweyne Xasan Sheikh qalinka ugu duugay. Wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.